inaga dushana kulli heshiisaan demeshi وكو كلا كقرين يشرون بدي كقرين أنا أحمد يجري بيسان إلى هنا محيري ولا يحقر المكر سيء إلى بأهله أنا يعني كنا شرقالة ومدحونا وآمنه وأن دورنه وأن سمعنه وسورنا ووضع حول التحال خلي أحمد ليه شيء أنا أشوف كانوا فدرا أحمد بديل إن شاء الله دعاء الذي كارت درجة ويكون هوري مودي شركوا عروق كله منك مركب مانتا bahaya Ahmed baa iga maqan Jubaland baa iga maqan Soomaali baan maamulay xoogaalka ah maxkamadii ka mid ka ahaa madaxweynayaasha ka mid ka ah waawrada ka mid ka ahaa wixii dhacay oo dhan ogaa wuxuu rabaa inta naga hadhay inuu bislaysto in kala ma soo meel dadka tabahaya in Ahmed ka maqan haddana dhahaya Soomaali baan maamulaynaa oo samata bixinaynaa oo meel geynaynaa waxaan dhahaynaa waa idin aragnaa waad noo muuqataan waxaad tihiin waa faham nin walba oo meeshan fadhiya oo reer Jubaland mas'uuliyad baa saaran mas'uuliyadda saaranna waxaa kow ka ah ummadda danaheeda inuu dulqaato النبي عليه الصلاة والسلام يقول قفك بلشدة كده حشرة خلادات كودا أدر غاتا وحكا خير بدي هاي متك بوغا بنان كوبا حال الروا عربي لما يكون بأسود أو أسمرينا هداد واحد بساطو وولالك واحد بساطو صبر باكلو قدوه أصلا وين مكالدا dhalinyarada hawsha abaabulaysa waa mahadsan yihiin shay u abaabuleen waxay kaloo ku mahadsan yihiin inay codsigayga aqbaleen ana waxaan ka codsaday magacii aabbahay ii bixiyo hooyada in la igu yeedho maanta maxaan ka u leeyahay haddaadan wax ka tanaasulin oo taytalkaaga ka tanaasulin oo darajadaada ka tanaasulin oo nacfigaaga ka tanaasulin oo aadan wax hambaynin dadka ma wada socon karo walaalayaal mar kale waxaan leeyahay aan dul qaadan inkastoo aan la ii sheegin xilliga Pakistan baa Ingiriis baa gumaysan jiray Ingiriiska gumaysan jiray ee Pakistan haystay 156 bay ahayd ninkii xukumay يا دكتور شيري وهو يري شاكا يلا إنجليز من باي وهو يري والكونتر يلي حوابا أن الإنسان سوق قبنا دون سعر واحد بقوم عليه وهو يري هذا كونتر يلي حين سوق قبنا ودون سعر وحين برأينا في الدولة يسدون نصعر كله بدري إنه مرة حرب بهنا ولا لا نهاي إلهي بوحسوك أندري dib ina wada saameeyay oo aynaan talateena ku imaanin baa ina wada qabsaday inaan luga dhaqamada baa la qaadaa nidaamno oo la dul qaato yaa loo baahan yahay reer Pakistan maalintii laga bilaabo ninkii wuxuu u xukumay wixii la dhibsada laga mudahara wuxuu yiri 156 nin walba soo xafiis ma fadhiyo meel ma joogo 150 ha ku dul mudaharaado dalin hore 150 hor fadhiisani adeer oo Ingiriis oo kuma rabin naga baxbaaldhi dalin ka dabana 150 fadhiisani adeer oo kuma rabin naga baxbaaldhi waxaan hadalka u adkaynayaa Soomaalida oo dhan ma dulqaadiya hadana heer Jubaland ma u dulqaadiya maxaa kalifay dibay dareemeen dibka Soomaaliya markasta maxkamadihii Jubaland bay ku dambeeyeen walaalada Jubaland bay ku dambeeyeen kaliya taliska Jubaland ku dambeeya dibkiiba xaqooda u bad iyo meel godan bay isugu tagaan marka dulqaadka way naga lumay barta dul qaadano oo samirno si aan dibkan uga baxo intaas waanada markaan ka baxo rag hadalka iigu horeeyay odayaasha ahaa ba hadalkay qaad siiba gudoomiyihii ugu horeeyay waxaan leenahay marka
wardib baa ina haysta dibka waxaan kaga bixi karnaa wada tashi isku dulqaad isu qubaysigii la qubaysan hayay oo sheegahayay odaygu Soomaaliya Jubbaland baa ugu biyo badan haddaynu ogolnahay inaan qubaysano dhasheeg baa ku yaalla waraa ku yaalla webiyaal baa ku yaalla labada webi meesha isugu tagaan Jubbaland baa isugu tagaan ee Soomaaliya marka kii kale ee dhinaca kale mara jira waa ku dhow yahay ninkii markaa diida warta in loogu qubeeyo oo ceelka loogu qubeeyo oo webiga diida baddaan raacinayna baddaan deeqi karta waxaan rabnaa markaa nin walba inuu ninkii shalay ka dambeeyey soo dhoweeyo aqbalo bini aadamka mabda'a kala kaxeeyo isula keena kii dambeeyeyna uu ka tanaasulo wixii wax ka soo qalday oo uu ka toobad keeno intaa waxaan kaga baxayaa reer Jubbaland inta kale Jubbaland jasiirad kuma taalo waddan bay ka mid tahay waddanka ay ka mid tahay 13 sano ee hawsha annaga gaarka nagu ayna haysatay iyo ta kale dadka aan la wadaagnaba madaxweynayaal baa jooga sida odaygu sheegay madaxweyne kasta subaxda aan u rajo badanna iyo ninka anagu aan la diraynin mudalacsiya asaguna hoos fadhiistaa asna muxuu aan ku gaaray ilaahay waxa leeyahay ummadiisa ka adag laba dhalna ilmaheeda ka adag isagu inuu kii taqaaddafayo mar la heshiiyey anagana khayaanay iyo ku guulaystaa oo sakaal soo noqonin ku cusub la bilaabo qolada maanta waxaan sheegaynaa marka dad anaga dushanada kula heshiisaan dee meeshii uu kuwa kale ka qariini jiray uu ka qariina anaga waxba yeeli maysaan ilaahayna wuxuu yidhi walaa yaqru makru sayyi ila bihi anaga ninkana shirqoola oo madaxweyne u aamino oo aan dooranno oo aan u sabcinno oo suu noogu wada hawl imtixaan ka leexday Axmed la heshiiyey ana shirkaan u fadhiya Axmed baadili insha Allah ducada la gaar darada way ku dhacay horey uu diri jiray kuwa hore kale madaxyo badan buu soo inta wala iba intaas markaan ka gudbo waxaan leeyahay qolada la baxday samata bixinta oday abtiga ahaa bari waxa la yiri wakaalay hoolan safrisanay oo hargeysay joogeen oo aan qaad ka sii cunaaliyada xoolo naga maqan forestration ka ilaalin oo lacag sugay wuxuu yiri nin dadka yaa nin qash soo ninkii runtii nin qori wato uu dilay kii qoriga hilibka cunahay markuu dilay wuxuu isii banninkan wuxuu cunayaa dhamis qaybtii hadana ugu doonay kii uu dilay uu bislay dad musaaqo ninka marka maanta dhahaya Axmed baa iga maqan Jubbaland baa iga maqan Soomaali baan maamulay xoogaalka ah maxkamadii ka mid ka ahaa madaxweynayaasha ka mid ka ah waawrada ka mid ka ahaa wixii dhacay oo dhan ogaa wuxuu rabaa inta naga hadhay inuu bislaysto in kala ma soo meel dadka tabahaya in Axmed ka maqan yahay haddana dhahaya Soomaali baan maamulaynaa oo samata bixinaynaa meel geynaynaa waxaan dhahaynaa waa idin aragnaa waad noo muuqataan waxaad tihiin waa faham labada qole Soomaalida maanta siyaasadda ku haysta qolada madasha samata bixinta intaas aan leenahay dawladda hadda faqa ku jirta ee fagaaraha ka dhuumanaysa ee meelna shacab looga dirtay geeda waa dawladda waxaan leenahay laba dhal ilmaheeda ka adag Axmed nin aaminay ka adag ilaahayna ummadiisa ka adag iyaga intaas aan fariin u diraynaa musharaxan soo waa hore waxa dhigtay mikrofon iyo ogolaaday si ay u gaar raalli ahaa musharaxa ay soo haray ma iloobin dhalinyarada iyo musharaxa kulliga waxaan leenahay nin qayla gaaban geerisa lama dhicin qayliya sacbiya orda gabiya oleya lama daa فرصة هيا قوم معنا دد بايد سوق حي وضع هوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته